Somaliland ma laga yaabaa inay sanadada soo socoto ay ku guuleysato waxay muddada dheer ay raadinaysay oo ahayd intiraaf. weli cabdixaafid oo anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dadka soo daawanaya markooda dadka reer Somaliland gaar ahaan dadka deegaanka Somaliland degan ee u badan beesha Isaaq way ka go'an tahay caadifad ahaan iyo ra'yi ahaan in magaalooyinkooda Hargeysa iyo Burca iyo Gabiley iyo Ceergaabo iyo inta ay berberi degaan in nidaam maamul Soomaaliyeed Muqdisho ka jira inaanu marna aanu ka talin arrinta dawlad la'aan iyo dagaal sokeeye ka xiga. marka waxa weeye Somaliland waxa u sahlaya inay la aqoonsado maadaama wax ka sokeeye aanu jirin koonfur ehelnimo kama dhaxayso. waxaan kaloo kugu daraya caasimadda Soomaaliya oo Soomaali wada dhisatay markii Talyaanigu naga baxay oo 60kii ahayd waxay ku gabagabowdeen 91 hadda caasimad cusub oo beesha hawiye dhisteen ayaa xal ka jirta wixii la wada lahaa ama ha noqdo document ha noqdo ama guri dawladda ha noqdo waa la kala tegay. marka waxa weeye Somaliland waxa u sahlaya inay la aqoonsado maadaama wax ka sokeeye aanu jirin koonfur ehelnimo kama dhaxayso. waxaan kaloo kugu daraya caasimadda Soomaaliya oo Soomaali wada dhisatay markii Talyaanigu naga baxay oo 60kii ahayd waxay ku gabagabowdeen 91 hadda caasimad cusub oo beesha hawiye dhisteen ayaa xal ka jirta wixii la wada lahaa ama ha noqdo document ha noqdo ama guri dawladda ha noqdo waa la kala tegay. waxaan topiga uga danleeyahay fursadaha Somaliland helayso kow Soomaali baa siinaysa oo dee Soomaaliyeed dhex gasho ma rabto. marka waxa weeye labo waxa weeye Somaliland hadda maanta laba doomood bay wata. kow doon waxa weeye dadkii Soomaaliyeed isma rabaan midnimada laga hadlaya maaha midnimo dadka Isaaq laga dhaadhicin karo way ogyihiin waxay taageen. labo Thailand ama Taiwan dalka Taiwan waxay doonaysaa bridge siyaasadeed inay ka dhigato Somaliland. taasna waa qodob. Maraykan iyo China waa ku kala tegeen geeska Afrika oo China ay uga badiyeen. marka Maraykanku fursadda Djibouti waa laga saaray Ethiopia Maraykan waa laga saaray. Maraykan hal fursad u bannaan waa inuu ka soo xaroodaa dekedda Berbera oo halkaas uu main u noqdo si uu fursado uga helo ama Eritrea ama Suudaan. waxaan markaa waxaas u falaqaynaya Somaliland fursadda waxaa siinaysa Soomaalinimo dambaa jirin midnimo dambaa jirin wadahadal dambaa jirin. marka fursadaha waxaa siinaya dadkii Somali integration isdhexgal kama muuqdo. dadka reer Somaliland oo beeshaas u badantay beesha dhexana ma doonayaan in dib dambe intay ummad u tageen lagu bahdilay oo lagu laayay oo lagu burburiyay oo ilaa hadda loo garaabay in mar dambe hoos laga tagay. marka Somaliland aniga nin 60 sano ku socdaan waxaan aaminsanahay qofkii ugu nacay Somaliland waa labo inay saa iska ahaato iyo inay fursad hesho siday u heshay koonfurta Suudaan sida u heshay Eritrea iyo siday Djibouti u heshay oo fursad ay soo martay. u malayn maayo in Soomaaliya midnimo noqonayso intaan nool